السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسنا يان إذن لنا هي أقيارتا ميل والبا نغدا ونيسان إن شاء الله سان هورين وغا برتين channel كاني وجنال أريمها بوفيسكا immigration ka qaxootiyada meel walba maartay information lagaga waramo weeyaan sidoo kalena DV lottery-ga ayaa mahandan ayaa la socoteen waxaan rabaa inaan halkaan idin ku soo gudbiyo barnaamij gaaban oo ku saabsan qaxootiyada oo update idin siiyo insha Allah dad badan ayaa soo weydiinayay qaybta buufiska ee ku saabsan Ethiopia dad baa ka imaanaya run ahaantii bishan oo dhan waa laga imaanayay oo hawshu way socotaa inkastoo sidii la rabay aysan ahayn hase yeeshee markii loo fiiriyo 3 bilood 4 bilood ka hor maanta ayay ka wanaagsan tahay Ethiopia dadka imaanaya markii la eego sidoo kalena Kenya dad baa ka imaanaya xiriyahaasi hey halkan ma soo booqatay hadaad halkan soo booqatay waxaan ku leenahay soo dhawo halkan waxa looga hadlaa arimaha qaxootiga arimaha DV lottery-ga arimaha immigration-ka iyo guud ahaan waxyaabo badan oo aad ku raali geliya waxaan ku leenahay mar halkan hadaad timaaday subscribe noo sar alarmiga furano commenti ha ka iloobin saaxib like tana sidoo kale de waa walaalkiina Shaaciye One Show oo idin leh daawasho wacan sidoo kalena Kenya dad baa ka imaanaya xiriyahaasi waa dad baa ka soo baxaya soo Ethiopia kala ah marka Ethiopia meelna waa qabr bayax sheedeer iyo awbare dhanka kalena waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa qaxootiyadan kale ee la dhaho boqolmaayo malkaadida hilaweyn bur aamino ilaa iyo qaxootiga kale ee shanaad ma xasuusti ayagana waa shan soo dhamaantoodii hilaweyn dad baa ka imaanaya aan arkayay sidoo kalena Ethiopia qeybaheeda kale ee dhankan kale maxaa la yiraahdaa maxaa la ii sheega qeybtan oo awbara iyo sheedeer iyo qabr bayaxna dad baa ka imaanaya halkaasina oo aad baa looga imaanayay ayamahan isla bishan gudaheed oo hadda dabayaaqada 11 inay mare 25 waaye maanta soo 25 26 27 badada imaanaya oo ka imaanaya Ethiopia ka imaanaya qoysas Soomaaliya imaan doono sidoo kale Cumaan dad baa ka imaanaya oo soo bishan gudaheed yimid ilaa iyo dhowr 10 aan iraahday ilaa iyo 7 ruux oo kale ayaa timid oo single u badnaa taana waa taas dhanka kalena markaan eegno boqolmaayo waxaa ka tagay Canada oo boqolmaayo aaday qaxootiga boqolmaayo tiro dad ah oo Canada aaday ayaa jiro kuwana hadda ayay dhigsan yihiin oo caafimaadkii processka ayay marayaan haddana aan u kicitino dhankaas iyo Uganda dad waxaa jiro oo IMO-da ay soo dejisay liis badan haba u badnaadeen dadkan la dhaho Somali Bantu la dhaho u badnaadaan iyo dad kale isugu jira iyo dad xaalad caafimaad qabay ayagana halkaasi ayaa maartay la keenay oo magacyadoodii listigoodii IMO way soo dejisay basically marka IMO barnaamijyo ay soo dejiso waxa way dad la doonayo in barnaamijka socdaalkooda iyo immigration-ka ee Mareykanka loo bilaabo waaye soo intaasi waa update-yada ugu waaweyn ee aan rabo inaan idin la wadaago oo maartay ku saabsan qaxootiyada Ethiopia Kenya iyo Uganda iyo Cumaan ayay ahaayeen marka Kenyana dad ka imaanaya ayaa jiro oo bishanba imaaday iyo dad hadda kadib imaanaya ayaa jiro oo sidaan ogsoonahay oo imaan doona soo sidii hore ma ahan programyadii aad bay u furmeen waxaana la rajeynayaa bilaha hadda soo socdaan inay aad u furmaan sidoo kale akhbaar waxaan soo gaareysay aan arkayay qaxootiyada Djibouti ayagana in barnaamijyadoodii uu bilaaban doono oo ay hawshu ay socoto soo barnaamijyo badan ayaa socdo niyada khayr ah loo sheego wixii arimahaas qaxootiga waa kuwaas in update-kaas ayaan idin siiyay dhanka kale markaan u soo laabto DV lottery-ga dadkii aan xareysanin dabayaaqo waaye uu dhamaan rabaa 25 ayuu marayaa weegagii u dambeeyay ayuu marayaa soo saad ogsoontiin bisha hadda soo socoto 9keed ayuu ku egyahay inaad idinkana aad si degdergelisaan oo dhameysataan isku daya dad baan arkayay dhahay qaxooti baan ahay ma abalay gareysan karaa hawa abalay gareysan kartaa arinta F1 visa-ga markaan u soo laabto ayadana update-kaasi
dad baa su-aal iga soo weydiinaya dhahaya anoo DV lottery xaraystay kan ma xaraysan karaa? Ha, waa xaraysan kartaa, waxba ma dhibayo. DV lottery inaad si rasmi Mareykan u joogtaa raadinaysaa. F1na waxaa waaye in aad waxbarasho leh u joogtid Mareykanka ayaa raadsanaysaa. So midka kuu soo baxo ayaa barnaamijkaaga ku geli kartaa haddii ilaahay calafkaaga uu ku daro. dhanka kalena dad kale oo waxaa jira ayagana su-aal iga weydiinaya isla F1ka oo dhahaya sideen u xareysanaa. haddaad fahanteen haddii kale ma aqaano, muuqaalkayga u dambeeyey applicationka waxaan idin tusay iskuulaadka. So iskuulaadka waxaan magacyadoodii idin tusay waxay tahay iskuulka ayaad galaysaa. iskuulka markaa websitekiisa gashid oo iskuulka qaybta magacoodii copy dheh. markaa copy dhehdo google-ka tag, halkaasi ma aragtay markaa gelisid google-ka search dheh, iskuulka kuu soo baxaya magaciisa ku dhufo, kadib website-ka iskuulka ayaad galaysaa. website-ka iskuulka markaa gashid meesha oo enrollment ama apply, labadaas mid waaye iskuulaadka Mareykanka waxay isticmaalaan. So enrollment ama apply, labadaas midkood ku dhufo, kadibna halkaasi howsha ha ku dhamaato. mar alla markaad informationkii magacyadii aad gelisay way kula soo xiriiri doonaan, kadibna waa isku sheegi doontaa qofkaad tahay, email ahaan ay kugula soo xiriirayaan. So haddaba FYI xasuusano haddaba iskuulka marka oo F1 visa uu qaadanayo lacag badan ayay qaataan oo enrollmentiga ah. fiisaha waa lacag adiga ku dhowaad lacag waxaa kaa baxayso ku dhow ilaa iyo $5,000 oo kale u baahan tihiin. So haddii lacagtaasi aadan haysanin, lacag kale ood Mareykanka kaga noolaato haddaadan haysanin, badnaa waqtiyada ha iska dhumina idin dhihi lahaa. dadka aan ugu talagalnay programkaas waa dadka lacag haysta, waxbarasho doonka baan ugu talagalnay. qofkii kale aniga oo kale lacag badan haysanina waxaan dhihi lahayn barnaamijyo kale allah kuu sahlo, allahna kuu fududeeyo insha Allah. barnaamijyadaas ayaan rabay sida degdeg ah aan idinku update gareeyo. That's why aan usoo gaagaabinayay. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. mar kale iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay subscribe-ta iyo like-ta ha ka iloobina. asxaabtiina inaad la share garaysaan. wixii talo iyo tusaalaha qaybta commentiga inoogu soo qoro ama su-aala. dad badan ayaa i weydiinaya su-aasha xaggeen kuugu soo dirnaa. su-aasha qaybta commentiga kusoo qoraysa si aan halkaasi ayaan kasoo xulanayaa. halkaas ayaan kaaga soo jawaabi doonaa. saan oo kale muuqaal ugu soo samayn doonaa. intaan dib dambe u kulmi doono. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.